dadka idaawanay waxaan u sheegayaa inayna horta dadka Afrika imika joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmayaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay de khayrkeeda Ilaahay idin kulisiyo wana la aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been magacaaga Nimco Muuse Axmed walaal leedahay waxaan joogaa magaalada Hosteri kaamka Traaskhiiqan marka dhibaatada aan meesha ugu haysataa ayaan kaaga warramaynaa dadaan Soomaali nahnay waxaan bishii 12keedii xageed ka timid waxaan ka yimid magaalada Soomaaliland xageed soo martay markaa waxaan soo maray Liibiya Itaaliya Hosteri Liibiya Itaaliya Hosteri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dhibaato naga soo tagnaa kulli iska garanaysa Soomaaliya dhib ka jira waa dhibaato imisa safarkaagu qaatay imisa bilood imisa maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarkayga bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika ka soo baxay Ethiopia Addis Ababa to Sudan to Libya to Italia maxaad kala kulantay safarkaagii Saharaha iyo Liibiya iyo Suudaan safarkayga waxaan kala kulmay adigu khayr bay kala kulmay insha Allah markaan badda soo galan bay igu maxjuso badnayd habeen iyo maalin aan ku jirnay ee doontaan ugu dalashantay doontaan ugu dalashantay habeen iyo maalin ku jirnay laakiin wallahi Ilaahay uu nagu badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kadib maxaa dhacay markii doonta dalashantay doonta markii dalashantay waxaan badbaadiyay markab Mareykan imisa qof waxaan hayn adigu 380 qof oo waxaan hayn laba doomood baan hayn marka cid wax ma noqotay may cid waxba noqon noqon laba dumar aan ugu dhalay waxba cid ma noqon alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas Talyaaniguna keenay Talyaanigii waa kaamil lagu xareeyay qaarna fara laga dhigay qaarna way diideen annagu waxaan ku soconay Suudaan waxaan dhahnay waan dhaafeynaa Hosteri baan qabata fara naga dhigtay marka imika halkan baad degan Hosteri imika ayaa 5 bilood ba joogaa xaaladaada ka waran xaaladaydu wallahi walaal ma fiicna kuma fiicni Hosteri ma wanaagsanaba waayo Hosteri waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu haayay waxa ay iyadoo naqaabileen iyadoo wax xalaal wax caadi ah noo qabanay hadda siraad ka baxna faraak ayaa la meesha soo qabanayaan xaaladeedu wallahi Hosteri ma wanaagsanaba maxaa la idin qaabili laayeen waxa ugu wacan qaabilaada meesha kaamka waxa haysta systemkeeda ma garanayna anagu laakiin qaxoontigii bay diideen ba qaxoontigu ma qaabilayaan way celiyaan ba qaxoontiga badankooda laakiin qaxoontigii bay diideen ba qaxoontigu ma qaabilayaan way celiyaan ba qaxoontiga badankooda laakiin dadka Syria iyo Afghan kiimada wadankan si weyn u soo galay si weyn ba loo qaabilaa si fiican ba loo siiyo sharciyada marka Afrikaankii waxa la loo qabanay ma jirto Nigeria dan Soomaaliland dan Eritreanay meeshan ku dulmanay waayo maxaa ugu wacan meesha waxa ugu wacan maamulka sare meesha jooga waa Afghanistan iyo Syria waxa meesha ka maamulaha safarkaaga hadan ku noqdo kharash intee lag baa kugu baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo halkan lagu keenay wadankan hadu waxa ugu baxay 8500 ugu yaraan 8500 dollar marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga soo gali lahayd ma soo galaan mana soo bixeen lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixeen mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankayga wax kaga qabsan lahaa hadaan mooday Yurubina saata yaad uga soo tagtay Soomaaliya waxa kastoo hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabaha iyo dadka awlaadeedii laba ciyaal aan dhalay inaan baan dhalay imisa jir weey labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood Amir iyo Amira la kala yiraahdo goorma kugu dambeysay waxa ugu dambeysay bisheedii sanadkiis 2014 bishii tobnaad marka waan isla xiriirnaa waan isla hadalnaa maxay ku yiraahdeen والله ولا ما كان داوعمي والله شيغay inay ku xil waxaad sameysay hooyo waan ogayn inaad daawacantay aan ku ogayn Ilaahay ha ku fududeeyo daawac waa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaad uga soo dhacday walaal meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahnay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax iyo adigu dahan Syria ma isleenay kadib Syriaanka waxaan isleenay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeegi dibadda ugu dhaan seexda dadkii naga qaatay moobilada iyo alaabta naga qaatayna dadkoodii baa afkiiba garanayeen annagu dhibtaasan haysata kadib anigu noon ku soo noqday kaamkii imika dibadda la saaray dhibtaa darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa
أنا سري dabaqood ka soo tuurtay طبقة صدحات بس كسورة oo maxaad ka soo tuurtay صنق إسكت سورة طبقة أنا سري dabaqood ka soo tuurtay طبقة صدحات بس كسورة oo maxaad ka soo tuurtay dhibaatada iga haysta meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan rag kala warramayaan wadanka baa anaga anagu qaabilsan haddana Afrikaanna marka dabaq iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay bad inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay noloshaygu igu adkaatay dabeta maxaa dhacay meeshan baan meel baahan walaal meesha meel wanaagsan ba ma haba hay dabaqaad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afar cishan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gamcood ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee wala taagana ku warramaya waan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku igu soo celiyeen meeshii igu soo celiyeen kaamku igu soo celiyeen imkood fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin kuwa fiicana wala maxaa ku qorshaysan maxaa sameeyay wax xalaalo waxaan ku imka dee ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxbaan isla way soo qabteen maalmood soo qabteen wadanka halka igu soo celiyeen dhaawaca wadankan baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahan xaqan ku yeeshay sharci iyo waxaan doonayaa waan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib dee guri fiican la leeyma geen xilligaana interview iyo waxba toona laga maqaan sharcina leeyma siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahan xaqna kama hayo xaq iyo xaq qawatana marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inay horta dadka Afrika imka joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmayaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay dee khayrkeeda Ilaahay idin kulisiyo wadana aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imka waxaan ogaaday inay dhabti tahay berefooda aya dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaajoon jirin been halkan baan ku gaajoonaaba aad baad u mahadsantahay walaal